muuqaalkeennan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa applicationada ugu fiican bishan March 2022 diyaar ma tahay? Let's go. soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeennan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa 7 application oo cusub diyaar ma tahay? si toos ah aynu bilaabano muuqaalkeenna haddaba ma jeclaan lahayd inaad ku edit garayso taleefankaaga muuqaaladaada isticmaal haddaba video lib si aad ugu edit garayso muuqaaladaada adiga oo kaliya isticmaalaya taleefankaaga abkan video lib waa application cajiib ah oo aad ku edit garayn karto muuqaaladaada si fudud waxaynu oran karnaa waa applicationada ugu fiican ee muuqaal hagaajinta taleefanada applicationkan video lib waxaad ka helaysaa dhammaan aasaasiyaadka muuqaal samaynta tusaale ahaan jarjaridda muuqaalada isdulsaaridda codadka ku daridda qoraalada dhexgelinta transitionada iyo bedelidda formatka ama ratio-da muuqaalka waana application fudud isticmaal haddaba abkan video lib ma jeclaan lahayd daawade inaad wax badan ka ogaato baytariga taleefankaaga tusaale ahaan percentagekiisa ama boqoleyda dabka cabirkiisa iyo weliba caafimaad qabka baytarigaaga hadday jawaabtaadu tahay haa haddaba isticmaal electron applicationkan waxaad ka ogaan kartaa waxyaabo fara badan oo ku saabsan baytariga taleefankaaga tusaale ahaan caafimaad qabka baytarigaaga cabirkiisa iyo weliba heerkulkiisa sidoo kale boqoleyda dabka kuugu jira haatan iyo macluumaad fara badan oo ku saabsan baytariga taleefankaaga tusaale ahaan inta mAh uu yahay applicationkan electron waa bilaash mana laha wax xayeysiisa isticmaal haddaba abkan electron ma jeclaan lahayd inaad soo celiso xogtii ka baxday taleefankaaga tusaale ahaan sawiraantii ama muuqaaladii aad u saartay sida khaladka ah hadday jawaabtaadu tahay haa isticmaal abkan ultra dot abkan waxa uu ku ogolaanayaa inaad soo celiso amaba recover ku samayso xogtii amaba macluumaadkii aad ka dhilid garaysay taleefankaaga tusaale ahaan sawiraantii ama muuqaaladii sidoo kale codadkii iyo documentiskii haddaba aan ku tuso qaabkii aad u soo cashan lahayd xogtii aad saartay tusaale ahaan waxaan dhiliidayaa sawirkan si aan kuu tuso qaabka aad u soo cashan lahayd intaa kadib waa inaynu tagnaa applicationka ultra dot kadib waxaynu ku dhufanaynaa photos amaba waxaad adigu xulan kartaa wixii aad saartay si aad u soo celiso kadib applicationku wuxuu iskaan garaynayaa dhammaan sawiraantii aad saartay intaa kadib marka uu dhammeeyo waxaad halkan ka arki kartaa dhammaan sawiraantii aynu saarnay intaynu isticmaalaynay taleefanka halkan waxaad ka soo cashan kartaa dhammaan wixii aad saartay adiga oo ku dhufanaya kadibna dooranaya calaamadda safe sidaana waxaad ku haysataa sawirkii amaba muuqaalkii aad saartay isticmaal haddaba abkan ultra dot ma jeclaan lahayd inaad sahamiso amaba la socoto cimilada goobta aad joogto tusaale ahaan roobka ku soo wajahan heerkulka kala duwan ee goobta iyo weliba dabaylaha ku soo wajahan goobtaas isticmaal haddaba applicationkan tiny weather abkan waxaad ka helaysaa macluumaad fara badan oo ku saabsan cimilada goobta aad ku sugan tahay tusaale ahaan dabaylaha roobabka heerkulka qoyaanka hawada iyo waxyaabo fara badan oo ku saabsan cimilada goobtaas applicationkan UI-giisu waa mid fudud si fududna waxaad halkan ugu arki kartaa macluumaad fara badan isticmaal haddaba applicationkan tiny weather sidaynu ognahay markaad baranayso luuqad cusub shayga ugu muhiimsan waa ereyada luuqadaas ereyaduna waa dhisaha jumladuhuna waa dhisaha hadallada isku xidhan sidaa darteed haddaad tahay qof baranaya luuqadda ingiriishka isticmaal abkan vocabulary applicationkan vocabulary waxa aad ka helaysaa kumanaan erey oo aanad hore u maqal kuwaas oo kaa caawinaya inaad xoojiso awooddaada ku hadal ee luuqadda ingiriishka sidoo kale applicationkan waxa uu ku sharaxayaa dhammaan erey kaste si aad u fahanto ereyga isticmaal haddaba abkan si aad u dhisto awooddaada luuqadeed ma jeclaan lahayd inaad qurxiso shaashada taleefankaaga oo aad saarato sawiraan wallpaperisa oo kala duwan isticmaal haddaba WallyQ oo ah application cajiiba oo aad ka helayso sawiraan qurux badan oo aad saaran karto shaashada taleefankaaga
haddii aad qabanayso shaqo tusaale ahaan aad wax baranayso oo jeclaan lahayd inaad qabsato waqti si aad u qabato hawsha aad u baahan tahay si dhaqso badan balse aanad haysan saacad isticmaal haddaba Timerice application-kan waxaad si fudud ku qabsan kartaa waqti kuna tirsan kartaa si fududna waxa aad doorataa waqtiga aad rabto inaad tirsato kadibna waxa aad gadidaa ama rogtaa taleefankaaga sidaasna waxa kuugu tirsamayo waqtigii tusaale ahaan haddii aad rabto inaad ku darsato waqti kale waxa aad kaliya rogtaa ama gadisaa taleefankaaga si uu isku soo bilaabo waqtigii si fududna waxaad ku haysataa timer ama waqti tiriye saacadii oo kala ah isticmaal haddaba abkan Timerice وانتاس هدي ادكاشي مقالك فضلا لايك صار سبسكرايب من ده كانالك وخالد عبد الرحمن ويد الله السلام عليكم Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead.